kulan wacan daawada waxaad ku soo dhawaataa channelkeena Leewaya Films oo aad kaga barnaamijyada warbixinada ugu dambeeyay la xiriira arrimaha Bollywoodka. maqaalkana maantana waxaan ku jeexi doonaa tirshada ugu guulaha badan India. Kareena Kapoor Khan waa xidig muddo 20 sano ku jirta filimada India, waxaana ku soo caanbaxday filimka Refugee ee la waday Sunil Shetty, Abhishek Bachchan iyo Jackie Shroff. xadigtana waxay sameysay film badan oo magac ay ku heshay, waxaana kamid ahaa Kabhi Khushi Kabhie Gham, Jameli iyo Three Idiots. laakiin filimka xadigtan lagu qeexo ayaa ah filimka la daawaday 2007 ayna ku qaadatay tirshada ugu wanaagsan ee India ee Filmfare bixiso ee Jab We Met. xadigtan ayaa ka hadashay waxyaabo badan oo naga qarsanaa kuna saabsanaa filimka Jab We Met oo ay la waday saaxiibkeed hore Shahid Kapoor. wareysi ay bixisay ayaa arrintaasi kaga hadashay xadigtan. Kareena Kapoor Khan ayaa sheegtay in filimkeeda guul sida weyn aan laga filinayn maadaama directorka filimka Imtiaz Ali uu ahaa filimkiisa labaad iyo Shahid Kapoorna ay filmo badan isla sameeyeen kuwaas oo aan guulo gaarin. waxaa jirta in xilligii duubista inaan dhahaya maqal aniga waxaan shirkadda Yash Raj u sameynayaa filimka Tashan. waxaa sidaas ku dhihi jiray Imtiaz Ali oo directorka filimka. waxaana filimkaas ku jira Akshay Kumar, Saif Ali Khan, wuxuuna noqon doonaa kan ugu blockbustersan iyo kan ugu weyn xirfadeeda. maxaa yeelay waxa ahaa Zero ama qof calool aan lahayn oo jalaqsan. maxaa yeelay ma duubi karin 7 saac oo xiriir ah filimka sababtoo ah waxaan ku jira tababar. maxaa yeelay xilligaas si aad ah ayaan u tababarnayo, cunto dheellitirana waan qaadan jiray. xadigtan ayaa sidoo kale waxay sheegtay iyadoo wareysigeeda sii wadata filimka Jab We Met xilligaasi waxaan ka filayay inuu noqdo film rom comedy jacayl iyo shactir ah. nolosha waxay ahaanaysaa wixii qornaa, waayo filimka Tashan ayaa noqday mid guuldareysa halka Jab We Metna uu noqday mid ka mid ah filimada India ugu weyn. sidoo kalena doorka Jeet waxa uu noqday doorarka India ugu sareeya ee tirsho walba ay macquul tahay inay sameyso. xadigtan ayaa sidoo kale la weydiiyay in filimada qaar kadib doorka Geet filmadii la jilay laga dhadhansanayay doorkaas, waxayna arrintaasi ka tiri tirisho walba qaabkeeda wuxuu noqday doorka Geet. jil walbana waxaa ku jira filim uu ku jiro qof u dhaqmaya sida Geet oo kale. haddii ay ahaan lahaayeen Bangi Baja Bharat, Tani Wedis Mano oo ku saabsan gabar yar oo reer magaal ah xiranna dharka Patiala Sharwal, rabtana inay reeyadeeda dhamaystirto sidoo kalena reeyadeeda rumeyso. xadigtan ayaa kala hore wareysi ay bixisay waxay kaga hadashay in doorka filimka Jab We Met ee Geet inuu ahaa midka ugu adagsanaa ay sameyso, sida hadalkeeda dhaqsiyaha badan, waana hadal la aamini kara uu qof walbana fahmi kara ayay tiri. dhinaca kale filimka Tashan ayaa ahaa mid soo saaray habdhiska gabadha Zero. Kareena Kapoor ayaa jirkeeda si aad ah u dhintay. xadigtan ayaa ugu dambeyn ka hadashay waqtigaas cunada ay qaadanaysay, waxayna ku jawaabtay waxaan ahaa qof qaadanaya cunto dheelitiran sida rootiga iyo wax walba dhabtii. waxaan wiilka la socday xaaladeeda aan u sheegi jiray had iyo jeer waa inaa wareysi bixisaa, waad ka hadashaa waxaan cuno 2 saacadoodba weli ma gaajoon, maxaa yeelay waan ku faraxsanaa habkaasi. xadigtan ayaa filimkeeda ugu dambeeyay wuxuu ahaa Angrezi Medium oo la waday aktarka geeriyooday Irfan Khan, wuxuuna ahaa filim guuldareystay. Kareena Kapoor ay hadda waxa u diyaarsan filimka Lal Singh Chaddha oo ay la wado xidiga Amir Khan, waxaana lagu wadaa in la daawado dabayaaqada sanadkani. waad ku mahadsantahay daawashada warbixintan. haddii aad ka heshana asxaabtaada la wadaag.